السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لليغا مسلمين تميل badduunka ka joogtaan waxa ku soo dhawaataan janaalkeena Aadam Showtu runaatii farxad weyn ayay noo tahay inaad muuqaaladeena daawataan anagan insha Allah waxaan ku dadaali doonaa inaan idin soo gudbino muuqaalo aad iyo aad u faa'iido badan insha Allah maanta waxaan qaadan doonaa darsigeena ku saabsan hingaada laakiin intaan casharka galin fadlan hadaad nala joog jirtay muuqaalka share gare hadaad nagu cusub tahayna subscribe gare si aad u aragtid muuqaal cusub sidaad la socotiin bariyahan dhan waxaan ku soo dhax jirnay madka ayaan ku soo dhax jirnay waxaan soo akhrisanay oo soo baranay maxal al-mad bil alif ayaan soo baranay waxaan kala soo baranay waxaan kala soo baranay al-mad bil ya ayaan soo baranay maanta insha Allah waxaan gali doonaa al-mad bil waaw ayaan gali doonaa aan ka faa'iideysano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواده مركله محل muuqaalka ama casharka maanta waxaan galeynaa al-mad bil waaw ayaan galeynaa al-mad bil waaw sidaan hore idin kugu sheegay madka waxa way jiidid madka waxa loola jeedaa af Soomaaliga waxa loola jeedaa jiidid way marka xarafka yani maxal aad jiidaysid kaas ayaa waxa lahaa mad marka xarafku waxaad ku jiidaysaa alif ayaad ku jiidaysaa marna waxaad ku jiidaysaa maxal lahayo ya ayaad ku jiidaysaa marna waaw ayaad ku jiidaysaa sidii aad maxal lahay aan soo hore u soo aragnay waxaan idin soo sheegay in maxal lahay xarakooyinka marna codkooda ama dhawaqooda uu gaaban yahay marna dhawaqooda uu dheer yahay marka dhawaqooda uu gaaban yahay waxa way marka kaligood yihiin way fatxada markay kaligeed tahay kasra markay kaligeed tahay marka damadan kaligeed tahay markaas maxal lahay codkooda uu gaaban yahay laakiin markuu codkooda area waxa way markii fatxada ay alif wadato kasrana oo maxal lahay uu ya wato waawgana maxal lahay damadan ay wow wadato oo maantana aan qaadan doona casharkan yani damada hadii la jiido wow ayaa ka dhalanay sidaas darteed waxa idin dhahay xarakada markay kaligeed tahay ha isku jiidid hadaa jiidid maxaa dhacay hadaa jiid fatxa ama kordhigal hadaa jiidid alif ayaa ka dhalanay hadaad hoos dhig jiidana waxa ka dhalanay ya ayaa ka dhalanay marka maanta waxaan qaadanaynaa insha Allah maxal lahay al-mad bil waaw ayaan qaadanaynaa al-mad bil waaw maxaa waaye al-mad bil waaw waxa waaye waa dama oo la jiido waaye damadii saan adin qoray saan hore waxa idin ku soo sheegay damada waxa waaye aniga sidaan u qoraa kitaabkan saas ay ugu qoran tahay inkastoo laakiin maxal lahay horena uu soo cadeeyay damada aniga sidaan loo bari jiray dugsiyada qaar iyo ardayda qaar saan ayaa loo baraa laakiin aniga maxal lahay yani sida quraanka uu ku qoran yahay ayaan maraa ilaan waxaan rabaa dadka oo dhan inay kaligood quraanka akhrin karaan rabaani marka damada saan ayaa u taalaa marka damadana hadaan jiido horta damada markii lagu dhawaaqayay damadan markii lagu dhawaaqayay maxal lahay salaay afka sala dhahay Soomaa ayaa lahay afka waa la kuusa afka oo kuusa adheysay marka hadaad afka si kuusid oo ku sii xeeldaarid oo si jiidid oo si dhahdid oo ku dahdid wax yar waxa dhalanay wow ayaa imaanay fiiri wow ayaa meesha ka dhadhamay soo mujid wow ayaa ku dhadhamay marka wow ayaa imaanay damada hadaa jiidid ama godaalka hadaa jiidid waxa ku dhalanayo wow ayaa dhalanay oo ayaa meesha imaanay marka al-mad bil waaw haday maxaa waa dilu waxa waaye waa dama oo la jiiday waaye waa godaal oo la jiiday maxaa ka dhashay wow ayaa ka dhashay damada hadaa jiidid wow ayaa ka dhalanay alif hadaa jiidid maxal fatxada hadaa jiidid alif ayaa ka dhalanay hoos dhigaalkan hadaa jiid maxaa ka dhalanayo ya ayaa ka dhalanayso marka sidaas oo la soco madka waa sidaas waaye marka maxaan dhahay al-mad bil waaw maxaa waaye waxa waaye dama ama godaal oo la jiiday waaye yaa dhashay wow ayaa dhashay tusaalihiis waa kana qaacidadiis waa tana u fiirso alifkan waa godan yahay u ee dhahay haduu kaligiis yahay waa u waaye laakiin hadii aad u hadaan jiido oo u dhaw waxa dhalanay wow ayaa dhalanay u fiirso marka fiiri u bu tu thu waxa idin soo sheegay haddana waa idin baraarujina waa idin xasuusina madka hadaa rabtid inaad maxal lahay fahantid ama ina akhris hadaa rabtid oo si toos oo si fiican u akhris hadaa rabtid ha laga dareem markaad madka akhriis waa in laga dareema al-mad bil alif hadaa rabtid ina akhrisid ha laga dareema afka kala qaad si fiican u jiid al-mad bil ya hadaa akhriisin oo dhehaysidna ha laga dareemo si fiican u dheh al-mad bil waaw hadaa akhriis oo dhehaysidna waa in laga dareema jiiditaanka waa in laga dareema laakiin يعني محل هاي من لقى دريمة أذن واحد لهذا هاي مي وان جيد محا واحد جيد ماله وإن لقى دريمة إنا واحد جيد يسيد إتو في رزق مركا أو بو تو ثو جو حو خو دو
قو كو لو مو نو مو انتوا كما غن يعني النو هي كما غن مشان يسوق عن صحة لو مو نو وو لو مو نو وو هو يو marka maxaan dhahay madka haddaad rabtid inaad maxaa lahaay si fiican u akhrisid waa in lagaa dareema inaad jiidaysid marka jiidays waa in lagaa dareemaa marka meeshaas maxaa lahaa yani maxaa la qaacidada waa yani qaacidada almadu bil waa waaye yani maxaa lahaay waad fahanteen aan maxaa la rajeenayaa marka tusaalihiisana waa kana u fiirsi inta wowgan alifkan waa godan yahay wow ayaa ku xigo maxaa lahaay hadda ka horna waxaan rajeenayaa inaad idin soo sheegay kitaabka ma ka fiirisid almadu bil alif almadu bil yaa iyo almadu bil yaa kulligooda xaraka ma saarno waa eber way banaan yihiin korkooda wax ma saarno korkooda wax dhan ma saarno almadu bil alif almadu bil yaa almadu bil waaw dushooda wax ma saarno xaraka kordhigaal ama hoos dhigaal ama godaal ma saarno waxa ogaataa alif hadda aragtay oo korkiis waxba saarneen ayna wow korkiis waxba saarneen yaana korkeeda waxba saarneen hadda aragtid la soco waxa mad waay jiid xarafkaas jiid marka inta u fiirso wowgan fiir wax ma saarno wax ma saarno soo mujeed marka soo akhri u waa ka somo ha marka soo jiid marka u tiya inta fiiri burika burika نورا ودودا يقول يصوم تكونون انت لو مر انا جديد واي ماشان ووا كجرا wax ma saar kulkiis ma jeedo jiiditaan waay intana fiiri intana wwaa ku jiro laba mar ina jidid waay ma laga yahay inaad dhahdid takununa ma ahan takununa ma ahan see waay takununa laba mar jid takununa intana fiiri mutasha almadu bil alif mutashakisuna almadu bil waa kana fiirso mutashakisuna إن شاء الله مركب محل هاي يعني المد بالواو واساس واي مد واو محا ووغ سو كو إيمانا ووغ مد واو وحاواي وضم أو لجيد وأما قدال لجيد واي مد ألف محاواي وكردقال لجيد واي مد يانا محاواي ووصدقال لجيد واي السبب إلى الكردقال كهداجيد أو هذه ألف أقول لنا هداد هوصدقال جيدنا أو هدنا يا كودال نيسو هداد محلها يقدال جيدنا أو هدنا وحكودالنا وو يا كودالنا marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fahanteen insha Allah meesha waxa ku eeg maanta mududka ayaa ku eeg meesha ayaan maxal lahay aan ugu bixinaa mududa almadu bil alif iyo almadu bil ya almadu bil waw maanta ayaan dhameynaa insha Allah ilaahay idinku anfaco ilaahay maxal hadii fahansiyo intaan ka bixin 10 ka bixin waxaan rabnaa inaan maxal qaadano maxal tadriibteen oo maalin walba aan soo qaadan jirnay waxaan ku fiirinaynaa insha Allah maanta tadriibta almadu bil waw ayaan fiirinaynaa inaan fahanay in kale محل حرف كوباد واكنا وفرسو محل هاي كلمة كوباد واتنا سيدها رسول هذا واتنا يكون دقتها را سين كان وجودها مجدة وجودها ولكن هو كوركيس واحد مصار معنات محاواي وجدتان واي المد بالواو واي مركز سين كانت صفة عن وجد سودة سي ووجا وكودش هذه كلمات الله يوجا هو فرسينها رسولا رسولا كان لواد اريق لواد وكان فيري وفيرسو ومقع واي او محل بدن كده التقانين ومعروف ومقع عن مقع واي هي سنها يوسف سنها يوسف كان ودا ما قادننا انت waxaa ku jira u fiirso almadu bil ya ay ku jira inta itna almadu bil waw macnaheed maxaa laba mar ina jiidid waay laba mar ina jiidid waa u fiirso jiiditaankan waa in laga dareema jiiditaanka waa in laga dareema hadaba madka hadaad si fiican rabtid inaad u akhrisid waa in laga dareema marka jiidis waa in laga dareema soo ka gaabanin waa in laga dareema u fiirso يريدون إن شاء الله مركب محل الله إله وحن كرجنا إنه يكون أنفعه جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.